axmed madoobe wuxuu ugu dambayn nairobi ka helay fasax uu ku qaban karo shirka kismaayo hogaamiyaha jubbaland ayaa dhowr mar cudurdaar u sameeyey qabashada shirka laakiin kooxda samata bixinta mucaaradka iyo siciid cabdulaahi dani oo fahamsan cagajiidka axmed madoobe ayaa keenay dood ah inay shirka ku qaban karaan magaalada garoowe haddii kismaayo ay hor istaagtay dowladda kenya axmed madoobe waxa ugu muhiimsan shirkan waa inuu ku xoojin karo sharciyadiisa oo ilaa haatan uu muran ku jiro laanta sirdoonka kenya iyo axmed madoobe ayaa la soo dusiyey inay isla garteen inuu shirka qabsado laakiin la isla maarayo miraha shirka oo laga fogaado wax kasta oo sii kala dili kara xasan sheekh iyo axmed madoobe kenya waxay weli rumaysan tahay inay xal u heli karto xiisadda xasan sheekh iyo axmed madoobe xubno muqdisho laga qaaday ayaa tegay magaalada kismaayo nuxurka shirkan ama qodobada ka soo bixi kara ayaa la filayaa inay u badan doonaan eedo iyo dhaar halkaanay mucaaradku ku dhicin inay dowlad kale ku kordhisaan madaxweyne uusan weli muddaxileedkiisii dhammaanin siday dadka qaar sheegayaan hadday tilaabo noocaasiyo ku dhaqaaqaan waa dhammaadka wixii ay raadinayeen oo ah xukun dowladeed waxaana loo arki doonaa koox fawda ah oo u soo labisatay inay dowladnimada soomaaliya burburiyaan iyagoo u adeegaya dana shisheeye waxyaabaha kale ee sida gaarka isha loogu hayo waa inay siciid dani iyo axmed madoobe ku guulaysan karaan inay mucaaradka muqdisho ka soo jeeda ku qancin karaan inay dagaal hubaysan ka ridaan caasimadda 25 bishan Diseembar waqtigaas oo la filayo inay muqdisho ka dhacdo doorashada golaha deegaanka caasimadda mucaaradka qaar ayaa hore u diiday doorashadan laakiin siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada muqdisho waxaa caqabad ugu filan inuu koray fahamka dadka caasimadda degan oo sida muuqata aan hadda diyaar u ahayn in damaca siciid dani iyo axmed madoobe in dagaal lagu geliyo muqdisho kooxda mucaaradka waxaa dhowr jeer beesha caalamka iyo xasan sheekh labaduba weydiiyeen inay keenaan aragti aan diidma ahayn oo doorasho oo lala barbar dhigo midda uu haatan wado madaxweyne xasan sheekh laakiin waa keeni waayeen shirka kismaayo waxa ugu weyn oo kooxdan laga rabo waa inay soo jeediyaan nuuc doorasho oo ay xal u arkaan hogaamiyaha maamulka Puntland Said Abdullahi Dani ayaa la aaminsan yahay inuu hayo nooc doorasho oo uu rabo inay la qaataan xubnaha kale ee mucaaradka ka yimid magaalada muqdisho mana cadda inay tiis u raaci doonaan iyo inay leeyihiin khiyaar ay mid iyaga u gaara ku keenaan Dani ayaa la sheegayaa inuu bixinayo inta badan dhaqaalaha shirka Kismaayo iyadoo sidoo kale la warinayo in xoogaa lacag ah laga helay mid ka mid ah dowladaha Carabta